أنا قميص شلة توبيان كالدي نساني قال لي لم مرماي waxa fiican muran ma fiicno dadka in loo dhaxeeyo fiican waxaan dhihi lahaa gabadha walaashay dhibka soo gaaray dumar laand oo dhan u gaaray gabar walba oo Soomaaliyeed u gaaray midda maanta nolol raaxo leh ku jirto ayuu gaaray waayo qofna iyada ma u hibeynin ninkan hooyaa soo dhashay nolol un bay la wadaagtay inuu jirkeeda taabto ayaaba khalad ah inuu ku xadgudbo ayaa khalad ah qofkan isfahma idinka dhaxeeyo هدا اسفهم ويسام برادر إلهي سبحانه وتعالى وحبني إنا فرتفر سيمبل واحد لكن هو يدي الماء قد دشيت هل ما هذا كرانة شرعي قرا ما بني وانا كبحت ها بعد ما تصنت جماعة ودي كوسو نقولنا حب يسولو سيدا السلام عليكم مرتواني دين سلامي نعيمة sorry sis you feel that way مركو رئيسة you know قفكم مركو هرتو وtopic laysku haysto ka hadlayo waxaa wanaagsan inuu aqoonti leeyahay intaad meeshan soo fadhiisato you can't say oh I don't feel sorry for the victim because aniga Somali haddaan nahay we don't manaqaano what mental health is what domestic violence is what maxali rahda sexual abuse is mo jaahilan ka nahay unless aanan baranin oo wixii aan aqoonteeda lahayn qofka marka la kulmo abuse waliba abuse kaasoo kaga imaanaya amba waalidkii amba qofku nolosha la wadaagay intaad dad soo hor istaagtid ma dhihi kartid oo waxaasaa laygu sameeyay because dadka waxa u sheegayso waa inay dad wixii fahmaya yihiin aniga I work in a psychiatric hospital and markaan arko dadka kale caadiga oo maaragtay oo aan Soomaalida ahayn حتى in order for them to tell you how they feel waa inay kalsooni ka helaan waa inay ogaadaan inaanad judge garaynaynin waa inay ogaadaan amba ay dareemaan inaad wax alla waxay kuu sheegayaan absolutely adiga aad ka tahay aanad biased ahayn oo aad dhahayn but waxaan adii lagu sameeyay waayaad waxaan u sameyn weyday because gabadhan yara miskiinta I think her name is Aisha waxa laba waxba iskugu darsamay labada waxa iskugu darsamay waxa weeyaan first of all way qof bay jeclaatay nin bay jeclaat anaga Soomaali haddaan nahayna raggeena Soomaaliyeed badanaa maasha Allah gacan dumar uma qaadaan so haddii hal iyo labo ay ku jiraan oo maxaa la yiraahdaa dumarka dilaa waxaa isleedahay hope one day insha Allah maybe one day qofkan wuu isbedelayaa laakiin you give them the benefit of the doubt maanta hadduu ku dilo bari hadduu ku dilo waxaa isleedahay wuu isbedelay marun buu qofkan isbedelayaa okay waxaday dhacaan say ku dhacaan lama yiraahdo sidee ku toosnaa baa la yiraahdaa first of all horta ninka gabadha guursanaya dhaqashadeedu leeyahay malaha dhimashadeeda amba dilkeeda so inuu absolutely gacan u qaado that's a no go zone inuu maxaa la yiraahdaa xataa ilxun ku fiiriyo waaba qaladba because asagaba qof dumara dhashay gabar buu dhalaya aan hibaran la gabadhiis in waxa lagu sameeyo walaashii xataa ninka loo dilay hadduu arko am sure margigaas weyn buu derbiyada madaxa kula garaaci lahaa so it is absolutely wrong inuu gabareer gacan u qaado no matter who she is no matter whether it's his wife his sister his mother inuu gacan u qaado maba ahaba qof dumara okay taamrika lagu soo tugo gabadhan she needs a lot of healing marka hore waxay u baahantaa uma baahna inaan ku niraahno maxaa u samaysay maxaad ku sameeyay she doesn't need that she needs inta la iskugu maxaa la yiraahdaa in la daliilo uma baahna in la yiraahdo yaa bad adiga qaladkan baa gashay also bad adiga qaladkaaga waa inaad qarataa also uma baahna waxay u baahan tahay in inta la fadhiisto qof aad u degan qof waxay dareemaya in inta la fariisto lagu yiraahdo okay tell me how you feel talk to me ila hadal maxaa la yiraahdo wax alla wixii caloosheeda iyo maskaxdeeda iyo ay tabanayso waa inay marka hore ka hadashaa that's the first step ee qaado u baahan tahay stepkaas marka ay qaado oo ay ka hadasho waxay tabanaysay bidkii haystay waxay habeenkii ka seexalad because I'm sure she doesn't sleep at night I'm sure because ciyaala ka maqan ninba inta dilay
Soomaaliba waxay u sheegatay maxaa la yiraahdaa Soomaalida qaarkood waxa ku jiro asmo kale leh waxaas adiga ama xaas kugu keentay. Of course she's not going to sleep well at night. So maxaa la yiraahdaa waxay u baahan tahay qof inay PTSD probably PTSD hadeertan ku dhacday because traumatized them she's probably traumatized for all these years wixii lagu sameeyay hadeertan Soomaalida falcelinta ka helayso she's going to be traumatized of that as well. So waxay u baahan tahay in inta loo tago lala fadhiisto lala hadlo lala sheekaysto markay within herself healing samayso when she's comfortable enough to talk about wax ala waxay lagu sameeyay waxay samaysay when she's comfortable enough to face her fear when she's comfortable enough in ninka bari haday maxkamad soo horjoogsato wajigiisa intee horisaad ku tiraado sidaan ay yeeshay and I did not like it or you made me feel this way comfortable enough markay sidaa ku noqoto marka kadib ayay caruurteeda hadana ay u fikiri kartaa because qof hadeertan sidaan hadii caruur loo soo celiyo she's not in the right state inay waa hooy walaalo one second inantu weynad la joogtay maanta oo dhan maxaa la yiraahdaa mayga waa siin weydeen iminkana weydin ka degtay Aisha habar yar soo noqo storygaaga inay dad kale ku sheegaan oo waxyaalo waa khalad adigu maxaa la yiraahdaa dadka u sheeg iminka inantii adejisay walaalo soo qabta hadana Aisha soo kor habar yar soo maxay wadataa Aisha sawtiidin la joogtay maanta how hadlina meeshay joogtaa soo qabsadade way Aisha soo qabso haba waata soo qabto mayga hala siiyo Aisha habar yar waa habar Sucaad I love you so much waanu ku jecelahay we support you habar yar maxaa la yiraahdaa aniga maxaa la yiraahdaa dumarka aan garanaynin Aisha waxay tahayna waxaan idin sheegaya hadaydan victim aydan aqoonin afkiina xidha because qofkani waa qof experience gareeyay lot of problem iyo trauma ma arkay yade